soogurku waxa uu ka mid yahay boqortooyada xayawaanka bahda lafdhabarleyda gaar ahaana dirka naasleyda waxa kale uu ka tirsan yahay noolayaasha yaryar ee quuta hilibka mararka qaarkoodna midhaha dhirta kuwaasi ay ka mid yihiin dabacadaha xoorka dabagaalaha iyo shurunshuurka baxda cilmiga saynisku waxa ay ugu yeedhaan galarela zanginia waxay kaga duwan yihiin noolayaasha kale ay isku bahda yihiin dibka dambe ee madow kaasoo loogu magacdaray asal ahaan waxaa laga helaa qaaradda afrika gaar ahaana waddamada ka hooseeya saxaraha badanaa waxay ku nool yihiin dhulka qaliil xigeenka ee saxaraha ah waxa uu leeyahay noocyo wax qadhaabta habeenkii iyo maalintiiba cimriga soogurku waxa uu gaadhaa 8 ilaa 12 sanno culayskiisuna 260 halka uu dhererkiisu gaadho 27.5 ilaa 40 sentimitir waxay ka mid yihiin noolayaasha xilliyada guga tarma sidkoodu waxa uu gaadhaa 750 ilaa 65 maalmood iyadoo halkii mar tadaadig dhasha 2 ilaa 4 ilmood ilmahaasoo ku qaan gaadha 1 ilaa 2 sanno jir kuwa dhadig ayaa ka hor qaan gaadha kuwa lab noolahani waxa uu leeyahay 36 hidaside iyo 28 ilkood soogurku waxa uu nool yahay qoys qaarkoodna keli waxaana uu qotaa ama hoy ka dhigtaa dhulka hoostiisa gaar ahaana meelaha leh dhagxaanta adag ugu dambayn sida uu sheegay ururka caalamiga ee ilaalinta waxyaabaha dabiiciga IUCN ma jiro wax halisa oo ay wajahayaan noolahani lamana oga tirada iyo qiyaasta rasmiga ee adduunka ku nool